runtii waxaa damiir xumo ah gabadha walaashayda Amiira in iyadoo aysan kasoo wareegan 24 hours ma aragtay gabadha tan oo diiqadaysan taankii wiilkeeda yarkaa la aasay in video aa kasoo dugtid yaa damiir xumona ma ku dhihi karo mana garanayo walaalo laakiin waxaan jeclaan lahaa mataqaanaa inaa saa wax ka bedeshaan reer Malaysia wallaahi alcadiim saa haddaad tirahdaan ku wada soconaynaa walaaltinimo dhawe ma jirto because mar walbaa faraxsannahay inaan isku wada imaano isla qasalno maaha soo dhawaada saaxiibada qaaliga ah waxaad wada aragteen in laga wada cabanayo reer Malaysia youtuberada reer Malaysia dhammaantood in la leeyahay hebel waa waji xun yahay hebel asxaan ma leh heblaayo gargaar ma leh dhibaatada dhankaasay ka jirtaa dhankaanay ka jirtaa aniga hal qodob baan idiin sheegaya inaan hadalka idinku dheereeyo ma rabo horta waan mashquulsanaa oo arrimo famil baan ku mashquulsanaa taa waa idinka raali gelinayaa maadaama intaa aa ka maqnaa qadka ta kale labaad waxaan rabaa inaan samsam walaasheen wiilka dee waad arkayseen wuxuu ahaa wiil aanba dunida loogu talagelin sababta u dhahaysaa wax kale ma aha dee markaad aragto qofka markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala khuliqul xasanka u dhammaystiro ilaahay baa kaa jeclaada walaashay samsam waxaan ku leenahay wiilka wiil iimaan leh aad u wanaagsan dee adigana ku qalbi qaboojinaya wallaahi hadda qalbigan ku oynaya yacni waxyaabaha uu dhahayay laga soo duubay ee ka midka ahaa hooyo markaad murugooto salaada duko hooyo ilaahay u laabo hooyo saa samee buu dhahayay hooyadiis buu qalbigu u qaboojinayay qadartuu yaqiinay bal daqiiqad yar ila daawada wiilka sida sharafta leh uu u hadlayay maasha allah saaxiibada aad iyo aad baa u mahadsantihiin waad daawateen wiilka waad aragteen gabadhan la leeyahay Amiira iyadoo 24 saac wiilka qabrigiisu qoyan yahay hooyadiisna u baahan tahay in niyadda loo qaboojiyo video intay soo qabsatay jees kusoo dulkacday soomaalinimada markii laga tago bini'aadanimada laga tago even islaamnimada xataa ma qabto micnaha dhaqan xumatii ugu dambeysay waaye cunug saqiira 24 saac asnayn inaad inta soo gasho aa ku jeesto adaa uga xumahay laakiin hal mid baa idinka maldahan sir baa idinka qarsoon sirtaas baan rabaa inaan idiin sheego waa idin codsanayaa videogan ila daawado ila dhamaysta wallaahi sir baan idin hayaa haddaa sirtaa ila daawataan caawa aad qanci doontaan youtube ley oo dhan aad ka qanci doontaan markii laga soo tago reer Malaysia dhammaan youtube leyda waa dad cadow ah haddii xataa isku magaalo ay ahaayeen ama ay wax isla soo barteen meeshii la rabay qofka inay caawiyaan asaga bay xasdaanba totally qofku yaqaanuu boo sii cadwaa waa uu dhibaateeyaa waanu ku jeesjeesaa asagoo ku jeesjeesaya wuxuu asaga leeyahay ma waa waxay dadka gaarsiiyeen tiim washamsi waxay qabanayeenna waan arkay waxaan rabaa muuqaalkan inaan wax yar idin xasuusiyo Amiira qaabkay u hadlaysay oo jees-jeeska ahaa walba haddii ay gabadha ay wareysanaysay hadday muuqaalka si toosa u soo dayn lahayd maxay ahaan lahayd samsam baa hadda jawaab kulul soo bixisay jawaab kulul baa samsam hadda soo bixisay oo farxiye sayid jawaabtaa soo siisay Malaysia liicaataa tagay waa uu ka qayliyey dhammaan youtuberada tagaan iyo dadka xataa tagaan aad bay uga qayliyaan sababtu maxay tahay dee ma la rabo inaad horumar gaartid inaad soo baxdid cid ku rabta ma laha maantay waxaa la ogaan doonaa meeshaad joogtid qof walbo waa u gaarayaa horta number 1 sir baan idiin sheegayaay sirtaan iga qaad dhammaan youtube leyda waa cadow meeshii ugu dambeysay waa
ma rabaan waxay iga haystaan inuu dadka kala gaaro ma rabaan qodobkaas koowaad iga qor waana ila ogaan doontaan waana ila arki doontaan waa ta koowaad ta kale labaad wax gaal leeyahay bay qof walaalkooda muslim ah bay ku cadwaan marka idinkan waxaa laydin tusayaa qalbi wanaagsan marka halkaa laydin soo fariista kaamirada horteeda waxaa laydin leeyahay saaxiibada qaaliga walaalahay idinka la-aantiin wax ma nihin markaad adiga usoo baahato oo shalay viewska heerkaa gaarsiiyey markaad adig u baahato waa lagu jeesjeesaya waxaa la iloobayaa inaad bini aadan tahay waxaa la iloobayaa inaad qof muslima tahay waxaa la iloobayaa qof soomaaliya inaad tahay haddaaba istaqaanaana way ugu sii daran tahayba haddaa u gargaartayna hilfahaba lagaa jiraya marka youtubeleydu soomaalidu qaarkood ma aha dad wanaagsan weliba midaan idiin sii sheegayaa wanaagga qofka maxaa qalbiga madoobeeya waa in la isweydiiyaa youtubeleyda dad cibaadaysta maaha dad dukada maaha dad ilaahay ka cabsada maaha dad salaada ilaaliya maaha waa dad baaba-ay noloshana ka dhacay idinka marka la idinku yimaadana qalbiga la idinku wanaajinayo walaalaha wallaahi bilaahi tallaahi ilaahay magaciisaan maray dad waxaan arkay salaada jimcaha aanan dukanayn qamiis iyo koofina u soo xiranayo maanta jimco waaye ilaahay naga aqbalo uqsum billaahi allan ku dhaartay war salaada sujuudooda dhulka ma dhacdo maba dukadaan waaba eber haddana waxaa lagu sii leeyahay maanta jimco waaye salaadii ilaahay maantay hanaga aqbalo marka sidaa waxa u malaynaysiin meesha ma taagnee waxaan idin leeyahay ka fiirsada dadkaa caawinaysaan qodobka koowaad oo aan rabo in meesha iga aadan inaan ka dhaho qodobka labaad qiso yar baan idin sheegaya qof baa hadda kor wuxuu igu yiri caan ah oo haddaan idin sheega ayaabaysaan qofkaasna aad ku taqaanaan inuu boqor yahay intuu ila soo hadlo wuxuu yiri inay caawisadaan karbo waayaan ku yiri waana caawiyey anaa waxaa weydiistay marka maadaama qof hebel ah istaqaanaan ma ii ballamin kartaa si aan mar u waraysto waxaa laygu jawaabay aniga dadka uma ballamiyo kaliya markaan ani waraysiyada samaysanayo kaliya baa qofka la hadli karaa laakiin inaan qof kale inta u waco oo iraahdo war saasa samaynaya aniga ma samayn karo okay farahan ka qaadi haddii intaa bahasha ay ku ekaaleed maxay ahaan lahayd intaa ani la isoo waco waxaa laygu yiri qofaad waraysato soomaadan rabin haa qof baan kuusoo dirayaa saa ii caawiso u caawi at the same time now youtube-kan aad 4 sano ku jirtid oo 100,000 aad gaari laadahayna wuu ku kala kacayaaye waxaad samaysaa shaqadana u qabo muuqaalna ha kula duubto ama muuqaalna ha kula duubo ha ku kala kacdo waxaan ku yiri anigu ma ihi qof damiir aan lahayn qof baan ku weydiistay waxaa igu jawaabtay inaadan ii awoodin adigana qof aadan ahayn inuusan waraysi ka qaadan karin at the same time haddana waxaad u baahan tahay qof adiga dhankaaga ka yimaaday inaan aniga caawiyo kadibna video aan ka qaato waxaan ku yiri bahdilka noocaasa ma qaato dadka waan caawiyaa laakiin adiga haddaad lacag haysato shaqada haddaad rabto waa kuu qabanaya haddii kalena kuma qabanayo nagu kala weydaari marka dadka ilaahay subxaana wa tacaala ee dhibaataysan maalin buu xaqooda soo saaraya korna u soo qaadaya waa haddii ay samirka iyaga badiyaan ay sugtaan laakiin haddaad samirka ka hor degdegto taas ayaa dhibaato ah samra waad gaaraysaan sadkiina sidoo kale amiira oo ku jeesjeesaysay gabadhan walaasheenna ah ee saqiirkeedii isbitaal la gashay intay caawin lahaayeenna reer Malaysia aan arkaya xataa in daraamo kale la soo jilayba in la caawiyo iska dhaafe aad baan uga xumaa laakiin nabara filanaysa naxdin ma leh baa la yiri waa ku aqaanaa dadkaas daraamada soo jilayo arxan la-aantooda iyo asxan la-aantooda waa ku aqaanaa waana ku garanayaa balse ma raba aniga inaan hadalla dhaho oo sharafka iyo wejiga iska hadleeya ma rabo siday la isaga hadleeyey ama siday eega isaga hadleeyeen inaan aniga isaga hadleeya ma rabo inaan sumcaddayda ilaashado ayaan rabaa mana ku dayanayo qof xumaaday mana rabo dee inaan anigana ka sii daba xumaado laakiin waxaan idin leeyahay qof walba oo aad caawinaysaan qof walba oo aad heer gaarsiinaysaan ogow waa qof aanan u qalmin laakiin waxaan idiin sheegayaa muuqaalkan bal ila daawo
jawaabta ay soo bixisay walaasheen samsam bal ila daawo waa kana si fiican u dhageysta fiidiyoga gabadha walaashii soo gelisayna codka ay ku soo dartay si fiican u soo dhageysta macnihii waxa weeye xaqiiqada halkaas ka arkaysiin ma fahanteen soo dhagihiina furta dhageysta codkoo dhammaystiran waa kan oo la soo jarjarin dhageysta sida mahadsantahay ducadaada aad iyo aad baa umahadsantahay run ahaantii waa arkayna soo wacday soo waxawaaye ma rabin inaan qofna dareedka ka qabto qof oo waxawaaye Malaysia joogo inuu isoo booqdo ma rabin ma fahanteen because markii aan go-aan gaaray inaan qof iyo 20 bilood asal ku jira ma fahanteen inta qofkii rabo inuu isoo booqdana waxawaaye markuu ugu horeysay arkuu isoo booqan lahaa u imaan lahaa ma fahanteen so أنا كنت قصب كملي إنه إصاب بوقض معني خصب كمدة يا إصاب بوقض لكن ما دام فرحة الأسلقة يفسدوا أو مرك أو فرحة جرتوا أنا مرقتنا وحفي عددكم ما دام يتسكود جوجان الشقان اللي يدقف كدباتي سن إن قرب استاج أو محيتي وحبايا نصيناني وحبا أم بهاني حول الحمد لله لكن حوايده هو كذا فاميلي ميجو وحبا ما قف أو مالين عاوية أما وحيقة عاوية استالك كجرون وفوقي انتاس وحواي أبال بانوها إلا مفانتي سو هادنا وحواي الحمد لله ما وحدي لما أهولا له والله العظيم بحبك بجران سو حقرتي maahan أنا قرب taagan biri baan taagnaanaya maantaan taagana shalay baan taagnaa mar walba ana ku garab taagan wallahi baadan ciilayn qof ciilan ma tihid ya haddii ma aragtay runtii waxaa damir xumo ah gabadha walaashayda Amiira in iyadoo aysan ka soo wareegan 24 hours ma aragtay gabadha tan oo diiqadaysan tankii wiilkeeda yarkaa la aasay in fiideo ah kasoo dugtid ya damir xumona ma ku dhihi karo mana garanayo walaalo laakiin waxaan jeclaan lahaa mataqaanaa inay saa wax ka bedeshaan reer Malaysia wallahi alcadiim saadaad tiraadaan ku wada soconaynaa walaaltinimo dhaw ma jirto because mar walba faraxsanahay inaan isku wada imaano isla qasalno maaha marka ma aragtay murugeysanahay waa inaad garabkayga taagan tahay adna markaa murugeysan tahay waa inaad garabkaaga taaganahay haddii kale walaaltinimada dhabtaaba ma jirto ya wax kaa dhiman maanta ma jiraan samsamey qofku baa tahay ya wanaagaagana waxaa yaqaana ama gudi kara qofku bartay qof kale barasho ugama baahnid samsam walaal uma qalmin in sidaa lagu yeelo balse waxaan ku leeyahay ilaahay baa ku jeclaaday ku imtixaanay imtixaanka u dulqaado maalin baa lagaa maseeri doonaa dunida u sare mari doontaa maalin bay dadku magacaaga raadin doonaan iyo muuqaaga meesha joogto in la isku kaa sawiro balse dulqaado walaashay wiilka dhinteen abtigu u ahayna ilaahay samir iyo iimaan ha inaga wada siiyo kuwa asaga la mid ah ee geesiyaal ahna ilaahay ha kugu bedelo garabkaagana ha soo buuxiyo waan ku duceynayaa walaashay baa tahay taariikh bay kuu noqonaysaa oo aad baratay ogow buugaagtu markaad isdul saarto ood ku istaagteed rabto inaad meel aragto ama dhagax markaad isdul saarteed rabto inaad meel aragto ku istaagto waxa ay ku tusisaa cibro oo markaadan ku istaagin aadan arkaynin nolosha waxaad dareentay dhadhamisay walaal waxa uu yahay oo lagu dareensiiyey in lagu garab istaagi waayo waa ka xumahay 100% aniga iyo kimsan xaris laba waxaan ku leenahay sorry إلهنا بدل خير قبان كعجب بريئة